wasaaradda waxbarashada Hirshabelle ayaa shaacisay natiijada imtixaanka fasalka 8aad ee ardayda deegaanada Hirshabelle horay u fadhiisteen kulankan lagu shaacinayay natiijada waxaa ka soo qayb galay kusimaha madaxweynaha maamulka Hirshabelle Marwa Canab Axmed Ciise wasiirka waxbarashada xildhibaano ka tirsan baarlamaanka qaar ka mid ah wasiirada Hirshabelle waalidiin arday macallimiin iyo marti sharaf kale ugu horreyn waxaa kulanka ka hadlay wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada Hirshabelle xildhibaan Abuukar Xasan Abuukar oo sheegay in wasaaraddu ay dadaal badan ugu jirto horumarinta waxbarashada Hirshabelle ka baaraan degtay markay doodheer kadib qorshe kor loogu qaadayo tayada aqooneed ee barayaasha tababaro wasaaraddu waxay ku hawladahay ama u qorshaysan in hadda lagu tababaro macallimiinta dugsiyada sare soo hormaraano in manhajka la keenay oo dugsiga sare lagu tababaro si ay ardayda ayagana u gaarsiiyaan ayagoo tababaran haddii la yiraahdo marro ayuu bilaaban doonaa waxaan ku talagalnay wasaarad ahaan in aan fulino ama qorshe ugu jiro dadka qaba baahiyada gaarka ah sida indhoolayaasha dagoolayaasha iyo dadka naafada ah sidoo kale wasiirka wasaaradda waxbarashada Hirshabelle xildhibaan Cabdullaahi Abuukar Xuseen ayaa ku dhawaaqay 5 arday ee gashay kaalmaha ugu horeeya imtixaanka fasalka 8aad ee dugsiyada dhexe ee Hirshabelle sheegaya oo aan halkan ka baahinayaa 5 arday ee ugu darajada sareysay ayaan sheegaynaa waxaan rajaynayaa ardayda aan magacooda sheegi doono gaar ahaan ardayga number 1 ah hadii halkan uu joogo inuu soo istaago ardayga koowaad ee kaalinta koowaad ka galay waxa weeyaan Cabdikariim Daawud Maxamed Cali wuxuu ka socdaa ama uu imtixaanka uga fadhiistay iskuulka Sheekh Xanafi wuxuu keenay قال وسعبيه كل سعبيه كل هذا سعبيه وحو كاني 94.75 أردق لباد وعبد الله أحمد أردق واد من جوجي هذا ما فديا مايا أوكي وايا أردق لباد وحوين عبد الله أحمد حسين محمد وحو على الدوسي اللي هذا الأقصى كويا لبلدوينه وحو كان 94.78 أردق سدحات وعبد السلام علمي أبيكر عمر wuxuu ka soo galay imtixaanka iskuulka la yiraahdo Umar bin Khattab wuxuu ku yaal degmada Beledweyne wuxuu keenay 93.63 ardayga afraad waa Xuseen Cabdullaahi Xuseen Maxamed wuxuu ka socdaa iskuulka Imaam an-Nawawi ee ku yaal degmada Balcad wuxuu keenay 92.88 ardayga shanaad waa Habboon Bashiir Odowaa Tuuxu waxay ka soo gashay dugsiga Sheekh Xuseen Cadde marka intaasan ku keenaya ugu dambeyntii kusimaha madaxweynaha Hirshabelle Marwa Canab Axmed Ciise ayaa u hambalyeysay guud ahaan ardaydii u fariisatay imtixaanka mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ayayna kula dardaarantay horumarinta waxbarashada Hirshabelle ciidamada qalabka sida warbaahinta ardayda qaaliga oo maanta hortayda taagan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxay tahay maanta farxad ay tahay aadan ugu hambalyeynaya bahda waxbarashada ee gobolka Hiiraan iyo bahda waxbarashada ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle ee Shabeellada Dhexe waxaan leeyahay inkana hambalyo aadan mahadsantihiin wasiirka iyo wasaaraddiisana waxaan leeyahay awlaan aqoonyahan markaan faano aan ka dhig u dhiibnay wasaaradda waxaan jeclahay inaad sii daadahay doonto wasaaradda waxaan rabaa inaan bandaaran yar u diro ardayda maanta waxaad tihiin dugsigii dhexe barina waxaad noqonaysaa dugsigii sare saa dambana waxaad noqonaysaan jaamiciin waxaad tihiin hogaankii dalkaanaad tihiin madaxdii dalkaanaad tihiin jiilkii soo korayaad tihiin haddaad
imtixaanka galaaska 8aad hays calool xumayna dib u soo korsay ku dhawaad 2905 arday ayaa horay waxay ugu fariisteen imtixaankan fasalka 8aad ee dugsiyada dhexe ee deegaanada Hirshabelle waana markii ugu horeysay ee wasaaradda waxbarashada Hirshabelle imtixaankan ay ka qaado ardayda fasalada 8aad ee dugsiyada dhexe ee deegaanada Hirshabelle Mahad Axmed Calasow warbaahinta Goobjoog magaalada Jowhar